barnaamijka ujeedadiisu waa wacyigelin haddaba xanuunkani muxuu yahay waa su-aasha koobaad ee nuxurkeeda aan doonayna in barnaamijka aynu ku furno waxaana inoo furi doonaa doctor axmed ismaaciil kusoo dhowo aad waad mahadsan tahay maxamed ilig iyo agaasimaha iyo khadar iyo sidoo kale aamina iyo dadweynaha kale nagala soo qayb galay doodan marka koowaad aynu dani ka jawaabno su-aasha ah muxuu yahay xanuunkan HIV AIDS-kanba goormuu adduunka ka soo kordhay dadyoga dhibanihii maxay u yihiin dhibaatooyinka qofka bini'aadanka uu soo gaarsiin kara calaamadihiisa si yaroo kooban markaan u sheego horta xanuunkan laba taariikhoodba waa la sheegay adduunka waxaa la sheegaa 1800 markay taariikhdu ahayd in noocyo ka mida danyaro ku noolaa Afrika uu xanuunkan soo gudbiyey mar ka mida saasaa la sheegaa laakiin se caadiga adduunka markii ugu horeysay wuxuu ka dilaacay 1981 buu ayuu caalamka soo gaadhay waddankeena markaad eegtana 1980 ilaa 83 meelahaas la sheegaa ayuu soo gaadhay xanuunkani waa caabuq waxaa keena nooc ka mida virusiska xanuunkan marka waxaa loo kala qaadaa HIV iyo AIDS marka HIV macnihiisu waxa la yidhaha human immunodeficiency virus oo marka hore waxa la yidhahdaa qofka bini'aadankii xanuunka HIV-ga marka koowaad 5 sano ugu horeysa wuxuu noqdaa HIV 5 sano dambe waxaa isku bedela marka xanuunka loo yaqaan AIDS-ka marka HIV marka la leeyahay dad badan baan calaamado lahayn waqti xaadirkaasi daraasadii ugu dambeeyay ee WHO ay samaysay 2021 waxay sheegaysaa in adduunka ay u dhinteen ilaa 510,000 ilaa 860,000 oo dada waxay sheegayaan dadkii qaaday amba xilliga career-ka u ahaa inay ku qiyaasayeen 7.7 milyan meelahaas oo kale in ka fara badan oo kalena way sheegayaan dhimashooyinka caalamku ka geystay sanadkii ugu dambeeyay 2021 waxay sheegeen in qiyaastii ahaa ilaa 4.8 milyan oo qof inay u dhinteen waxay sheegeen saddex qaybood marka loo qaybay laba qaybood oo ka mid ah inay ahaayeen dadka Afrika ku nool oo qaaradda Afrika sheegayaan oo waxay ku qiyaaseen 25.4 meelahaasi ilaa 25.5 in dadkaasi marka xanuunkaasi way u dhinteen xanuunkan waxa keensan sheegay virus marka ugu horeysa calaamado qofku badan ma yeesho amba calaamado ma laha wuxuu galaa xaalad loo yaqaan window period macnaha calaamado qofku ma muujiyo laakiin haddii laga tagi waayo calaamado wuxuu yeeshaa waxa la yiraahdaa flu like symptoms amba calaamadaha duriga oo kale madax xanuun iyo xumad iyo qandhe iyo jirka xanuuna waxyaabo noocaas ku bilaabmaa inta hore qofka bini'aadamka jirkiisa kama warhaynayo laakiin waxyaabaha inta badan loo aaneeyo waxa kamid ah difaaca jirka waxa ka warhaya nooc kamid ah saliska oo loo yaqaan CD4 amba waxa loo yaqaan cluster differentiation 4 marka noocaas waxay ka warhayaan difaaca jirku soo u shaqeynayo marka xanuunkan wuxuu aad ula dagaalamaa difaaca jirka oo aad ula dagaalamaya kadibna viruskani wuxuu soo eegtaa baa la yiraahdaa inuu qabsado receptorka loo yaqaan CD4 kamba cluster differentiation 4 jirka bini'aadamka wuxuu leeyahay receptor badan oo ka mid ah CD24 iyo CD68 oo kala noqonaya meelaha uu soo qabsanayo unuga jirka bini'aadamka ku jira ayaa meel uu ka soo galaan ba meel uu soo qabsan jira markuu salka gudihiisa amba unuga uu soo galayo meesha uu soo qabsanayo la yaqaan CD4 ka marka waxa la sheegay dadka adduunka ku nool dad yar oo tiro kooban oo wadamada Laatiinka ku nool oo kaliya baa la yiraahdaa baan salkoodu lahayn CD4 ka amba cluster differentiation 4 waxa la yiraahdo dadkaas kuma dhaco marka inta kale adduunka markii la eegay la baaray xanuunkaas qof kasta oo la noolaan kara uu ku dhici karo ayaa jiri kara way yiraahdeen marka calaamadihiisa saan soo sheegay HIV-ga 5 sano hore noqda 5 sano dambe wuxuu isku bedela xanuunka loo yaqaan AIDS marka AIDS markaan leeyahay qofka calaamadihiisa waaweynaba ka soo baxay marka miisaankiisa waa lumaya qofkii timi baa ka daadanaya afkii baa cadaanaya qofkii wuxuu u sii socdaa marka dhinacii muxuu ahaa noloshu inay ka sii baxdo meesha qadarka Ilaahay kuma inaan darino qofka bini'aadamku uu noolaan karaa laakiin si caadiga marka la sheego qofku difaaciisa ayaa sii daciifaya waxa la sheegaa qofka bini'aadamka HIV-ga la nool lama uma dhinto xanuunka laftigiisa amba viruska laftigiisa laakiin waxa la sheegaa in xanuunada ka faa'iideysta ee loo yaqaan opportunistic disease-ka sadurayo kale xanuun yar oo kale haduu ku dhacan qofka bini'aadamka ayaa waxa la sheegay in qofka bini'aadamka uu daciif u sii noqon karo laakiin waa la noolaan karaa si dadku ka aaminsan yihiin maaha dadka bini'aadamka waxyaabaha lagu kala qaadi karo kama mid aha in la wada seexdo kama mid aha in wax la wada cuno kama mid aha in wax la wada xidho macnaha say dadku leeyihiin laakiin muhiimaddu waxa weeyaan waxa lagu kala qaadaya qof dhiigiisa inta laga shubo qof kale lagu shubo hooyo uur leh oo ilmaha u gudbisa hooyo naaska shaqadiisa ilmaha yar
iyo xanuunada galmada lagu kala qaado kamid ah wax la yaqaan sexual transmission infectionska marka saasaa inta badan lagu aanaya dawa oo inkastoo virus yahay una dawa lahayn laakiin hadana waxa jirta waxyaabo saacidi kara qofka bini'aadanka ah oo u baahan la siiyo marka